السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود halkan waa Bulaala Media oo alaab aad nooga barateen barnaamijyada xiiso geliya waa mar kale iyo barnaamijyadeena caawa marti noogu ayaan halkan oo aad wada taqaanaan oo in badan saxaafadda iyo media iyo warbaahinta ka maqnayd way dhuumatay laakiin waa la soo qabtay ayaan ku soo dhaw Bulaala Media والله isku sarayaa waa maxay Bulaala Media ku soo dhaw horta aad iyo aad baan ugu dhawahay Bulaala Media waa habeenkii igu horeysay Bulaala Media aan soo hor istaago وانا كاغا مهد علنيا ابو محمود adiguna waad mahadsantahay mid labaad waxaan leeyahay asxaabta ku xiran Bulaala Media aad iyo aad baan idin salaamaya salaan kal iyo laaba salaan boqortooyo ayaan idinku salaamaya waxaan leeyahay soo dhawaad wala idin salaamay waxaan leeyahay gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada waxaan idin leeyahay de subscribe ta dhac naga giijiya share ta dhac muxuu ahaa like ta dhuf commentiga wax saas noogu soo daadiya love soo badiyo waliba aad baad u mahadsantahay ayaan halgan iyo fariintaas hooy inta yar baa la isku jecel yahay jaga ka siiya horta waxaan dhihi lahaa saxaabta kulli way daawadaan oo media hadee ummaddu hadda dunida media u badato waa la daawadaa waan uga 24 saac YouTube aan soo dhex taagan oo ka daawadaa wax marka waxaan leeyahay kulli YouTube wad ku jirtaan qofka walaalka subscribe iskaga caaw waxba kuma tarayso lacagna maaha isagana wuxuu u tari isagana wuxuu u tari waxaan adigana wax ku yeelin isagana wuxuu marka subscribe ta dhag ugu siiya waxaan leeyahay asxaabta ummadda Soomaaliyeed asxaabtaada waan idin salaamay waxaan ku salaamay salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa kaloo idin ku salaamayaa salaanta Soomaalinimo oo Soomaali weyn haysraacdo Soomaaliyeed laakiin halka su'aal baa iga soo baxday maadaama shantii Soomaaliyeed la raadinayna isu timaado dadkuna inta badan hadda waayadan midnimo lagu celceliyaa 2019 2018 ilaa 2019 2020 midnimo ereyga aad baa loogu celceliyaa horta mid baan su'aal yana baan halkan ka saxaya horta Soomaalidu midnimo ma rabto maraqan ku sheegay Soomaalidu midnimo way ka sheekaysaa laakiin kama shaqayso ma isticmaasho way ka sheekayaan waxay dhahaan hal midoobo laakiin aniga ku dhahaya hal midoobo midnimana uma socdo moogta marka waxaan leeyahay abgaan markii hore aan ka dheeray waa sidii soo laba kacay marka waxaan leeyahay Soomaalidu midnimada way jeceshahay in la midoobo laakiin kama shaqeeyaan waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed ha midoobaan waa dad walaala waa dad ehela waa dad wada dhashay meel laguma kala maqna ka Muqdisho jooga iyo ka ogaadeen ilaa raas asar ilaa raas Kamboni Djibouti iyo ka jooga Garissa Somaliland meel walbaba shanta Soomaaliyeed ee la raadinaya maalmahan dambe midnimo lagu dhawaaqayo waxaan leeyahay dadku waa dad walaale meel hal wada jeedsado taasi waa taas talabaad waxaan dhihi lahaa de shantii Soomaaliyeed xariir furay oo xariir raadinayay geelay shambo isagiiba hadana soo xidhay taawan ka gudubnay shantii Soomaaliyeed waa la isu keenay xariir baa isu keenay madheela waan halkan ka salaamay walaalka xariir midnimadu macaana heesta sanqaad anu waxaan ka codsanayaa heestii ahayd midnimadu macaana mudana dadweynuhu mulatarigu wacana haduu waxaan maamul lahayn baa hagaagsan igu turalka hees maamulku fiican yahay maamulada meel kasta ka jiraan in la adeeco oo la dhaleecaynin oo horta Soomaalidu dawlad way dhisataa laakiin iyada iska dumisa mar walba ma manaafacaadsato markii dawladdu hore meesha ka baxda tii kalena ayna wali imanin midnimo laga sheekeeyaa waxa laga sheekeeyaa inaynu dawlad dhisano dawladana dadku haday nin maxaa le raqay ninkeedi lugaha kaga ninkii dabada ma kacdo inaga ku taagan aan dawladaha madaxa uga kacnan leeyahay inaga isku taaganaa iska kacno waxaan leeyahay shacabkayga aad baad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad aad baad mahadsantihiin waxaan leeyahay midnimadu macaana mudana dadweynuhu mulatarigu wacana haduu maamuleeyahay moortaan yaqiiqdiyo muruuqiya afwada jira macnaa daran Itoobiya kumuuqninayna marunbaan mulkiyon majaraha u qabano marunbaan mulkiyon majaraha u qabanon malabkii xorriyadii midhaheedii aan guran malabkii xorriyadii
midhaheedii aan Gura. gura Afkaaga caana lagu qabay. laakiin awaan hal su-aalaan ka qabaa heestaas heesta waxaan qaadi jirnay xilligii jabhadu duurka ku jirtay allaha ka raalli ahaada intii ku shiiday waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantay ilaahay ha u boogadhayo intii maad aragtay dhib iyo dheefba usoo martayna ilaahay waxaan leeyahay meel wacan ha geeyo horta Ethiopia hadda heshiis baan la qaadanay oo wadankii aniga aan maanta dhawid ka imaaday Ogaadeniya oo Ogaadeniya hadda wax dhibaato hadda ka jirta ma jirto calankii Ogaadeniya indhihi jiray ilaahayow ma laga yaabaa horta calanka Ogaadeniya oo Ogaadeniya suran inaynu aragnay alxamdulillah laakiin aynu aragnay maynaan dhihin bade Ogaadeniya oo go'do inta badan waxaan dhihi jiray Ogaadeniya inuu calanka Ogaadeniya laga taagay waa maanta meel walba lagu wataa qof kasta wata oromada wadata xabashida wadata gambeelaa wata qof kasta wata calanka Ogaadeniya maandhawid waxaan ku arkay nin xabashi oo wata moogta waxaan ku muxuu yahay calanka oo nalifkiigu dhah wuxuu igu yiri bari hadda ka hor lama wadan jirin laakiin hadda waa wataa marka taa waxaan dhihi lahaa alxamdulillah rabbil caalamiin shacabkeenu ha dhaho shacabkeena hagardaamada ha iska daayo bariyahan dambe colaado yaryar baa ka jira wadanka oo aan sii badnay colaadahaas ilaahay ha naga damiyaan leenahay dadku waa dad walaalo ah amiin ilaahay naga damiyo leeyahay qolo dadka deriska hayso dhimriyaan baan dhihi wada dhasho ehela meel kuma kala tagayaan haddana kulli waa la heshiin dagaal kastoo dhac waa laga heshiiyaan soo ma sha Allah marka insha Allah intaas baan dhihi lahaa heestaasna xilligaas ay hayde haddana waa loo baahan yahay midnimada midnimo maan uga dan lahayne sax Ethiopia hadda wax target oo ayaan ahaan iyo lagu jirta aad baad u mahadsan tahay barnaamij lamida intaan ku kulmi doono ayaan way mahadsan tahay oo caawa nagu soo booqatay Bulaale Media barnaamijyo qurux badan baan ka diyaarin doonaa oo la dhaho xusuustii ayaan halgan iyo heesii hirgalay barnaamij la dhaho oo aan ka diyaarin doono insha Allah wiiga gandambe soo geli doona hawada barnaamijka intaan ku kulmi doono waxaan leenahay sidaa iyo amaana Allah